muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida aad u samayn lahayd graphics kan oo kale ah oo counting down sameynaya ama saas soo wareeganaya ilaa uu xagga u dambeysay kasoo gaadho oo aad waqtiga doonto gashan karto. marka haddii aan kan delete iska idhaahdo, marka horeyse waxaan tegayaa qaybtaydan toolbarka, kadib waxaan halkan ay ku taalo circle ayaan soo dooranaya circle, kadib halkan baan soo dhiganayaa shift baan la qabanayaa si ay circle dhammaystiran igu noqoto. kadib waan soo weyneysanayaa, qaabka markaan soo weyneysto ayaan sii deynayaa. kadib waxaan sameynayaa inaan idhaahdo align horizontally, kadib align vertically center. kadib waxaan sameynayaa inaan duplicate ku sameeyo anoo halkan jooga essential graphics, right click baan leeyahay, kadib duplicate baan taabanayaa. duplicate markaan taabto kan hoose waa ka ii hooseeya labada circle-ka xagga hoose xiga. kadib waxaan ku qoranayaa under markaan ku qorto, kadib waxaan sameynayaa inaan stroke ka bedelo orange baan ka dhiganayaa. okay waan leeyahay, haddana stroke 2 ayaan bedelinayaa, orange ayaan ka dhiganayaa isagana. kadib in yar baan soo celinayaa. okay baan leeyahay, waxaan ku sameynayaa scaling down baan ku sameynayaa, kadib scale baan tegayaa 90 baan gashanayaa, kadib click baan leeyahay. kadib saas iska soo hoos muuqan doonaan, hadba kii aad doonto ayaa soo sariisan kartaa kalarada adiga ikhtiyaar u leh. waa aniga brown colorskayga ayaan ku sameynayaa. kadib waxaan sameynayaa saanaan u soo celinayaa, waqtiga aan doonayay inaan ka dhigto ayaan sameysanayaa. kadib saanaan u jiidanayaa ilaa waxaan ka dhiganayaa 10 second aduu 12 second baan ku deynayaa si aan noo aragno qaabka uu shaqeynayo. kadib waxaan sameynayaa effects baan tegayaa, halkan waxaan ku qoranayaa radial wipe ama radial, halka video effects ka markaan joogo ayaa waxaan ku qoranayaa radial wipe baa soo qabanaya. kadib waxaan ku darsanayaa graphics kaygii. markaan qaabkan ugu darsado waxaan imanayaa qaybta ay ku qoran tahay effects control ee qaybta bidixda kaaga soo muuqan doonta. kadib waxaan tegayaa transition completion, kadib halkaas wixii ka bilaabayaa anchor point-ka waa videoga bilowgiisii. waxaan sameynayaa markaa muuqaalka bilowgiisa markuu anchor point-ka igu sameeyo ayaan koonahan keensanayaa xaggan u dambaysa ee muuqaalku ku dhammaanayo. kadib waxaan sameynayaa inaan halkan tago transition completion, halkii 0% ka waxaan ka dhiganayaa 100%. kadib halkan ayaan click leeyahay, wixii sameynayaa anchor point xagga u dambaysa ku yaala weliba aan saa u durkiyo. kadib waxaan sameynayaa inaan muuqaalka play gareeyo si aan ku tuso qaabka uu shaqeynayo. haddii aan imika play idhaahdo, waxaad arkaysaa circle waxay bilaabaysaa inay counting down sameyso oo ay hoos u wareegto ilaa haddii aan imika saa u yara jiido kale ilaa ay xagga u dambaysa ay kasoo gaadhayso. waa muuqaal editing-ka waxaan isticmaalayaa software Adobe Premiere Pro. haddaba waxaan doonayay inaan ku sheego waxa weeyaan waxaanu dhigaynaa course loo yaqaano graphic design and video editing course oo bilaabmaya 10 bishan August. waxaad ku qaadan doontaa Adobe Premiere Pro iyo FX Pro, waxaa kaloo ku qaadan doontaa Adobe Illustrator iyo Adobe Photoshop. fadlan haddaba haddii aad jeceshahay barashada muuqaal hagaajinta iyo video graphic design-ka, waxaad iska diiwaangelin kartaa lambarada aan hoos ku dhigay ayaa iska diiwaangelin kartaa. waxaanan u sameynaynaa qiimo dhimis 30 arday ee ugu horeeyay isdiiwaangelinta, iyadoo loo sameyn doono qiimo dhimis 25% oo halkii uu course-ku $20 laga qaadi doono $15 oo diiwaangelina. wax bila ah oo la iska qaadayaana ma jiro course-ka, ama lacag bila ah oo labada bilood bil walba lacag aad bixinayso, laakiin waa lacagta registration code hadhowna certificate of completion buu wataa oo aad helaysaa. wuxuuna bilaabanayaa 10 bishan soo socota ee August insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.